kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Alool TV iyo barnaamijkeeni wax ka bara caalamka oo aynu maanta ku soo qaadanayno qurxinta hablaha iyo qaybaheeda halista ah waxa muddooyinkii dambe soo baxay ama soo badanaya qaab cusub habluhu isku qurxiyaan qababkaas oo ay ka mid yihiin kuwa halis galin kara xaaladooda caafimaad balse laga yaabo dadka intooda badan inaanay ogsoonayn barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa halka uu ka soo jeedo asal ahaan isnaaxinta hablaha waxa sababa iyo cudurrada uu keeno kuwa ka mid ah raadraaca sheekada waxaynu ka soo bilaabaynaa dalka Suudaan oo halka laga soo bilaabay dhaqanka hablaha isnaaxinaya dalka Suudaan waa dal ku yaala bariga Afrika sidoo kale waxay ka mid tahay wadamada ugu faqiirsan caalamka taasoo ay sababtay inay ku yar yihiin khayraadka wax soo saarkooda iyo siyaasad xumadooda haddaba sidee iskula xiriidhaa qurxinta hablaha iyo faqiirnimada dalka Suudaan cimilada Suudaan waa mid aad u adag una badan banaanka saxaraha oo aan geed ka soo bixin sida laajigeedu waa dal ay ku badan tahay baahida bini'aadanka sida gaajada iyo macaluusha isku geynta xaaladda soo jirta ee dalka Suudaan waxay sababtay inay dadka intooda badan ay noqdaan dad duuduuban ama caata ah marka laga reebo in yaroo fara ku tiris ah tirada dadka wadanka Suudaan guud ahaan waxa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafeen 42 milyan iyo badh inta waxa lagu tiriyay inay ka yar yihiin 300,000 sida ay sheegtay hay'adda caalamiga UNICEF haddaba tirada isdhaaftay iyo xisaabta khaldan ayaa keentay in xaaladdu noqoto mid ah in hablaha ka dhashay qoysaska ladan oo kaliya ay noqdaan kuwa naaxsan ama buuran halka hablaha inta badan ay yihiin kuwa caata taasina waxay keentay raggu inay daneeyaan ama aad u jeclaystaan inay helaan hablaha ka soo jeeda qoysaska ladan oo astaanta lagu gartaatay inay yihiin kuwa buuran arrinkan waxa ka faa'iideystay dad ganacsadayaal oo tuulooyinka u dhow magaalooyinka waaweyn ka hirgeliyay goobo u shaqeeya qaabka dhakhtarka oo kale oo dumarku isku qurxiyaan qurxintaasi waxay ka mid tahay isbuurka ama isnaaxinta iyagoo adeegsanaya cuntooyin nasasho iyo daawooyin isku jira hablaha Soomaalidan hore u aqoon dhaqamadan ayaa sanadahan dambe bilaabay arrinkan isnaaxinta balse ma haystaan daryeel caafimaad oo ay kaga badbaadaan haddii xaalad caafimaad ay kala soo daristo daawooyinka ay cunaan oo inta badan ay ka soo maqleen hablo ugu horeeyay isticmaalkooda dhaqaatiir soo xaqiijisay markii cilmi baaris lagu sameeyay daawooyinka iyo cuntooyinka ay cunaan iyo qaab dhaqanka aan jimicsiga lahayn caafimaad darrada ay kala kulmi karaan ama kala soo darsi karta isnaaxinta waxaa ka mid ah dhiigkarka wadna xanuun dhasha oo ka raagta ama ka guurta tajahoo istaaga xasaasiyad ku dhalata ekfashan ku abuurma beerka oo barara haddaba inanay ama marweyma kula tahay inaynu calafka caafimaad ku sugno barnaamijka waxay idin socodsiinaysay anigu Hooda Axmed Cali barnaamijkan intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxay idin ka tagaynaa sida iyo amaana Allah